waxaanu halkan maanta ku daafuraynaa swimming pool-kii ugu horeeyay ee Hargeysa yeelato oo la yiraahdo Batalaale swimming pool wuxuu ka kooban yahay qaybo fara badan oo arki doontaan in yar bilicsan doontaan waxay ka kooban tahay qaybta nabadgelyada security-ga waa Batalaale waana magaalada wuxuu jiraa 3 kiiloomitir oo waxla waxaan filayaa inaynu kaga maarmi doono waxyaabo fara badan inuu badda u socon jiro 150 kiiloomitir aanu socon jiray oo maalin walba caruurin naga soo dhiman jirtay marka systemka waanu sharaxi doonaa horta waxaan ku soo dhaweynayaa maanta wasiirkan oo nagala soo qayb galay oo ah ganacsiga oo nagala soo qayb galay maanta oo nasiib u yeeshay in uu xadhiga ka jaro in xafladan maanta bilaabmaysa maanta xafladda tanqiimaha iyo qaayaha leh oo Batalaale swimming pool oo maanta aan xadhiga halkan kaga jaray kaasoo casri ah waayo maanta waxyaalaha faraha badan ee ganacsatadeennu iyo dadkeenna khubarada ee dibadda ka yimi aynu ka faa'iideeyeen halkaas uu indhihiina idin macallina waana arki doontaan tallaabo ayaa loo sharxayaa wax weyn oo aynu kaga maarano maalin walba caruurihii ku dhimanayay xeebta oo halka intay gawaarida ka kaxaystaan booliiska iyo security-gu dhibaato badan ay kala kulmayeen waxa laga yaabaa in gurigoodii loogu keenay oo ay ku dabaashaan indhihiina idin macallina waad aragtaan oo waxyaalaha ka socda waxa weeye wasaaradda ganacsiga haddaanu nahay in kasta si kastaba ha ahaatee waxaan anagu dhiirigelinaa mar walba oo dhiirigelin anagu aan u muujinaa ganacsatada meel kastoo ay joogto goob kastoona loo ku yeedhana waxaanu jecelahay inaanu kaga qayb qaadanno si aanu ugu dhiirigelinno oo ugu mahad celinno shaqadaa ay dalka keeneen ee cusub ee ugu horraysa ee aad aragtaan inay dhallinyaradii kaga badbaadayso meelihii fogaa ay tegayaan taasi waxa weeye sharaf weyn aad baana ugu mahad celinaynaa waayo hadda waad la socotaan wax kastoo investment ah ama aad maalgelin samaysid oo aad diyaarisid waxay ku tahay faa'iido weyn waad aragtaan dekedeennii berita iyadana la furaya la daahfuraya waxa ka dhacay waa aragtaan waxa caalamka haddaad dib ugu noqotaan maalgashiga caalamiga ahi ee Soomaaliland albaabada ay u furtay horena waa ugu furaan laakiin intii xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ay albaabada u furtay waad aragtaan waxyaalaha dekedii waad aragtaan saldhigii waad aragtaan waxaad arkaysaan oo kale haddaan tusaale u soo qaadano dekedaha la yiraahdo Hong Kong iyo dekedaha Malaysia ku yaala iyo dekedaha ku yaala waxaan ku raada caalamka kullu DP World meel walba ka shaqaysa iyadana waa soo dhaweynaa investmentigana waa la mid waxyaalihii qofku uu dibadda kala yimaado ama fikirkii uu keeno oo ganacsatada ahi oo khabiirada ahi annaguna waajib wax nagu ah inaanu dhiirigelinno shacbiga iyaga weeye horumarka kolba ay Hargeysa iyo Soomaaliland ay gaadhiso step by step aynu soconno waad aragtaa maanta wixii barkadihii caalamka inay loo qoday waxaanu kaga raysanay safarkii dheeraa ee ilaa Berbera aan u tagaynay annaga oo magaaladeedii joognaa inaanu ku dabaalno waxaanay u sahlaysaa kuwii dabaasha aan aqoon ee la oranayay maalin walba intaasoo inan baa inaga dhimanaysay Berbera oo ay baddu liqaysay because iyagoo aan dabaasha aqoon bay tagayeen halkan waxay noqonaysaa halkii ay dabaasha ku sii baranayeen marka hore inta aanay tagin Berbera oo aanay badweyn gelin waa tii lahaa badweyn lama galo adigoon dabaal baran marka hore barkadan baa lagu sii baranayaa marka aad barato ka bacdi baa dabaal tagaysa waxay u sahlaysaa qofkii aan dabaasha aqoon inuu ku sii barto iyadoo ay tahay dhowr level 1 iyo level 2 iyo level 3 waa saddex barkadood oo kala yar mid waliba age-kiisa ay leedahay qofka marka aanu dabaasha garanayn level 1 ka ayuu ku soo baranayaa level 2 ku soo gudbaya level 3 markuu barto markaas uu deegtana ka bacdi uu teeg karaa badiya meeshii uu doonayo inuu galo magacayga oo Amwaarig Maxamed Ducaale ciga bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Mustafa Yaasin Hebe waxaan ka mid ahay customer-ka Batalaale swimming pools Berbera marka waxaan u arkaa arrin aad farxad leh waxaan rajaynayaa in dawladdu taageeri doonto insha Allah wassalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam alxamdulillahi rabbil aalamiin magacayga waxaa Khadar Maadi Hebe injineer Khadar Maadi Hebe waxaan ninkii injineerkii meesha dhisay waxay meesha waxa weeye waa saartan waxa ka sameysanta waa sabadgeedu iyo qalab laga keenay China oo kharash badan ku baxay systemka biyaha wareegaya iyo concrete meesha lagu sheegay sabad lagu shubay iyo waxa loo sameeyay magarasa weligeed aan waxba noqon waana barkada caalamka ugu wanaagsan noocan loo sameeyo design-ka dibadana loo keeno anaga dhisnay meesha alxamdulillaah rabbil aalamiin biyahana biyo loo doonayo meel kale maaha oo laga soo booydo lagu soo dhaaminayo meel kale laga soo qaadayo maaha riigiba barteen nooga taagan biyo bada ayaa ilaahay laga siiyay magaalada Hargeysa gudaheeda alxamdulillaah marka biyaha markii uska yar la dareemo waxa weeye waa laga saaraya oo dibadda loo qubaya
qayb wareegana way leeyihiin system colorin jin colorin ku sii deynaya ku dhiijinaya mid kiimikal ku dhiijinaya oo marka biyaha yar dareema saacad baa sheegaysa marka waxa weeyaan alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay waxa weeyaan alxamdulillah waynu ku sugnaa amniga waxa inoo keenay amniga haysano haddaan amni lahayn barkad lama sameysteen labana dabaasheen kanay wixii walba waxa la keenay ideyaduna ma shaqayso haddaan lagu darin time maal iyo aqoon waliba maalka waa la helaa aqoonta ugu horeyso markaanu aragnay meesha potentialka leedahay waddanku meel walba wuxuu ku leeyahay potential wuxuu u baahan yahay aqoon iyo maalun waliba aqoonta horeyso taasaan ugu kaliftay anaanu kuna gambalnay marka lacagta intaa leeg la geliyey la kalibiyaa lagaga soo saaray meesha cidlada way kala gedisan yihiin laakiin ilaa $4-5 waxaan kaas weeyaa aad ugu jaban oo dadku adigu nameeriyaan habi bay ku yihiin waa inta 150 kilomitir socon lahayn ama 300 kilomitir ilaa berbera yani qof walba habi ku yahay halkan 2 saacad ama saacad ku daaludina gurigiisa isku tago ma inta badan time bay leeyihiin saacad 2 saacadood laakiin dadka inta ugu badan saacad bay ku daalaan haday dabaalanayaan biyaa waxaynu ognahay inay yihiin waxyaabaha dabaasha ugu xololo afarta waxyoodo jirkaagu way shaqaynayaan dadkana way ogtiin inta ugu badan inaan saacad ba ku jiri karin because inna waynu fadhinaa inna waynu qaylaa marka imika wixii ka dambeeya laga yaabaa inay dad soo baxaan laakiin number yar baan filanaa inay dabaalyahan caadi ah noqdaan laakiin waa good amount way imika laydad baa jira xagga hoose ka soo qabanaya biyaha sideed u kala badbaadinaysaan halista laydtanka waa su'aal wanaagsan waxa weeyaan waxaan ku hadaan ay aqoon jiro waxa ma socoto waa la design gareeyay safety-ga 100% laga dhigay waxa lagu rakibay qalab imika aan haddii adigu aad taabato intaana dareemin adigu isgoynaya hadduu xataa halkan joogna danab ku dhaco waxa ku jira danab tire dhulka gelinaya danabka aanu qofna dareemi karin marka taa waxa weeyaan aqoonta iyo xirfadda meesha ku jirta oo aan la soo ergisan aanu la dul taaganay 24 hours way imika deegaanada ugu xeeran abaar baa sanad dalka way ka jirtaa sidaad u maareyseen deegaanadan idinkoo hoos jiro abaar baa ilaa iyo malaa in ka badan 50 kilomitir sidaan u bedelay ilaahun baa og waxaanu siinaa biyo free dad iyo xoolo maalintii waxay cabaan waxaan jecelahay inaan tuso tisamka hadda time hayno maalintii waxay cabaan ilaa 100 ilaa 300 ilaa 500 foosto oo wax lacag la charge gareyn bilaadan kana saasoo kale ugu shubnaa biyo macaan kuwan dhanaan yar bay leeyihiin oo iyagana waxba la charge gareyn deegaanka oo dhan dibadna waxaanu ku soo kordhinay inaanu abaartii ka tiro for good insha Allah taa nolol soo socoto iyo inaanu shaqo u abuuro dadka noo shaqeeyo dhami kabigoodu waa deegaanka su'aal gaar ah snakring laakiin sheegtay waa mustaqbalka maxay idin qabtaa wax noo qorshaysan maadaama wax la yiraahdo marka nolol la helo marka biyo la helo nolol baa bilaamata there's water there's life wax noo qorshaysan in hotel 5 star laga dhigo ugu horeeyo biyo free oo hela way hotelka waxa ugu muhiimsan u iibsada waa biyo hotel na biyo laana aanu qodan ma soo saari karo waa potential ka yaala waxa potential in beer lagu beero waxyaabaha talaabada lagu sii xigta weeye waxa nagu sii jirtay inaan biyo macaanayno biyo yaraan filter marina saan filter biyo macaan magaalada ka soo baxda la yeelano waxa nagu jirta hadii la doono in beer la sameeyo intaas oo dhan waa potential ka ama waxyaabaha daba socda ee u diyaareen laga qabto xagani waxa weeyaan iyaduna showerkii qof waliba uu lahaa suuligii aanu qofna qof u tagaynin markiiba waxa gali karaya 10 qof oo aanu qofna qof ku lahayn wallahi biyana aragtaan way iska socdaan wax qiimaan nuguma fadhiyaan waayo maadaama biyo free توشكو قفكو كتجي كره حتى واحد برضه ما صار سمله وأنا فل هيتشينك وأنا الله إلى 24 hours كا مركا وقول ولا بيروح ليوات مركب واحد قال لي كرت موقف مركبة سهولية لحدا يعفر ثيتشي ده وحاجة ضمبقة مركا وحويان هو فل ستاندر وفور ستارز ده ضد كده لو طلع عليه وأكسبت بوله كان وحويان بيها نسيدا كلينيك ويهين وحصور تجلي مركب بيها أنا وعرقنا أنا برنس بدلين وحصور تجلي ساعة قنتها تانجي وين واحد كتيرة بالله كورل ساند أما بالت السكرتو كلا أو وحصفية وحصفيان وحي ميكروسوفت لما قبضتها إيه مكبام كني وأرديا هالكبو يا لبيا وحكسو نوجا يا دحضة أما هالكن وحو مرينا يا وحو كتورة يا دنا رنار كأنه فلتر كان هو استمركم مريو فلتر كوريابا وحي على اللي كاركتها لأن هاي أنترنو سيرة تاكتا وحي كاركتها مركم مريو ساعدها مو برش كأنه قلت سيا طبعا تنوع مرنا يا قصبة عرقتان هل كان واحد كنت بيها كواركتان 7.4 وين تبلغوا ضبعنا كرو هترولك مركم مريا عفر تاسن صار ميد ولا بوح وبهنا وكدريا طبعا نبيه يوس مثلا أو كلينا أيوم مركا نقولنا راعينا يا كان وحوا سمانيا كلورينتا مركا كلورينتو كنا متأسجان أنتو كسم يستو أيوم كدريا كلورين تيسنا طبعا 99% واحد نقولنا بيها نعمنه
inay ka nadiifsanaadaan marka ugu horeysa biyahana waxay ka soo baxayaan 200 iyo something dhulka hoostooda marka uu noognaay deerno jermis kuma noolaan karo marka wuxuu soo baxayaan iyagu marka biyuhu iyo 100% nadiifa marka saa loo sahlayaana waxaan oo dhan maraan in suurtagalna waxa nooga dhigay maadaama imika lama soo argisan aqoonta iyo mishiinadan annaka design garaynay oo rakibnay oo maintenance garaynay oo hawl gelinaa يعني إرجع بريتو مركو كاترول كينا بلق إسلامه لونه يبالك كيف تاجوا حنوصله إسعاف وقعنا نقول تلاقي الله ينورده كنترول هذا السيستم كان لدقين الله يركع ويحد لي يماله وحنا قلنا يونت كليا مارتان ملالنا ورقضي وكنترولية قف بلادن كمركو تابتو تهدي من اللي سكن بكو جيني يدون دريمن بس ما توحك صوت مرت الله يرباط وطبت يمك دون كوش قيا عفرك إن شغلنا وانو كنا أن دوني نحن هرجل لنا نضرب حبر لكن ولي لا هذا ما ينوسف تبنو ضد كنوا كليتا مركز this is the control side مر والبنا مواي كران قونتينا مواي كران قالوا مركز اسمه تاجي لكن هذيك كلام مركز مرة كيف تسنسر سكيك تاجو العدلات تاجي ثمانية هين